السلام عليكم أصحاب السود وهذا مدحوينه دونالد ترامب قلبته ayuu saxiixay sharcigiisii ugu magac daray the big beautiful bill sharcigaas waxaan ognahay talaadadii cod aqlabiyad yara oo 51 ah ayaa aqalka sanadka ay ku meel mariyeen madaxweyne ku xigeenka ayaa waliba codka 51aad dhiibtay kadib markii la saddex xubnood oo Republican ay dimuqraadiyiinta 47 ah ay ku raaceen inay sharcigaasi diideen konton markii ay noqotay maadaama madaxweyne ku xigeenka uu yahay gudoomiyaha aqalka sanadka isaga ayaa codka 51aad ritay sidaasi ayaana sharcigu uu ku meel maray kadibna uu ugu gudbay aqalka wakiilada markii hore sharcigan waxaa jirtay in bishii shanaad ay aqalka wakiiladu meel mariyeen sanadka uu gudbay sanadku isbedel ay ku soo sameeyeen kadibna aqalka wakiilada uu dib ugu soo laabtay muddo 30 saacadood ka badan markii aqalka wakiiladu ay ka doodayeen arbacadii ilaa iyo khamiistii oo shalay ahayd ayaa ugu dambeyntii ay meel mariyeen 218 ay ku meel mariyeen 214 waa ay diiday waliba gudoomiyaha aqlabiyadda yar aqalka wakiilada ninka dimuqraadiga ah Hakeem Jeffries la yiraahdo ayaa isku dayay sharcigan inuu dib u dhigo waxana uu hadlay saacadihii ugu badnaa ee aqalka wakiilada laga hor hadlo taasi oo ahayd 8 saacadood iyo 44 daqiiqo xiriira uu hadlay haddaba madaxweynuhu sidii uu doonayay ayay u noqotay sharcigan waxa uu doonayay maalinta 4 bisha ah oo maanta ah oo maalinta xurriyadda Mareykanka ku beegan sanad guuridii 250aad inuu sharcigan saxiixo munaasabad balaaran ayuu aqalka cad ku qabtay xitaa diyaaradaha nuucooda Mareykanka kaliya oo caalamka ka haysto ee la yiraahdo B2 kuwaas oo duqeeyay goobihii nuclearka ee Iran ayaa aqalka cad dul maray isagoo micnaha dabaaldega dhahayo maadaama xurriyaddii waddankan ay tahay sharcigiisii uu doonayay inuu saxiixayo si uu halkaas ugu saxiixo xubnihii Republicanka ee labada aqal sanadka iyo waliba aqalka wakiilada ayaa kala soo qayb galay marka uu saxiixayay labada dhinac waxa ka taagnaa gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka John Thune iyo afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson waliba Mike Johnson waxa uu u keenay Trump buriskii alwaaxa ka sameysnaa oo marka qofka afayeenka ah uu aamusinayo xubnaha ama sharci uu ansixinayo uu ku garaaco in alwaaxa hor yaala ayuu u keenay Trumpna waxa la arkay isagoo ku garaacaya miiskii uu ku saxiixay marka sharcigan maxaa ku jira oo shacabka Mareykanka u wanaagsan sharcigan horta waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah arinta canshuur dhaafka oo laga yaabo tax return-ka ama canshuur xareynta sanadku markuu dhamaado marka la gaaro in lacaga ka fara badan lacagihii ku soo laaban jiray ay u soo laabtaan dadka food stamp-ka ama kaararka cuntada lacagta loogu soo shubo shuruudo ayaa lagu xiri doonaa qofku inuu saacado shaqeeyo ah markii hore inaad guriga iska joogto oo lacagtu bil kasta ay ku soo dhacdo ma jiri doonto kaarka caafimaadka dad 10 milyan ka badan ayaa weyn doona 10 sano ee soo socota arintaasi oo la leeyahay hadda isbitaallo fara badan laga yaabaa sidoo kale in ay ku xirmaan laakiin arrimaha ugu muhiimsan waxay tahay dadka Uberka ama Lyftiga wado ama warehouse-da ka shaqeeya warehouse macnaheedu waxay tahay bildinada waaweyn dadka Soomaalida aan aqoon hadaan u fasiro ee shaqooyinka kala duwan laga qabto dadkuna ay u shaqo tagaan marka waxa jiri doonta in wax canshuur aan laga qaadi doonin dadka 1099ka ku shaqeysta in tibka ay helaan tibka markaad Uberka ama Lyftiga qof aad ku qaado lacag tiba ayuu kugu soo diraa marka sanadku uu dhamaado Uber ama Lyft lacagtaasi waxay ku soo diri jireen lacagaha canshuurta oo xareynayso hadda kadib tibku wax lacag canshuur ah laga ma qaadi doono oo tibku waxa uu noqon doonaa mid adigu aad leedahay oo wax canshuura aan federaalku uusan ka qaadi doonin stateku waa halkiisa halka uu ka qaadi doono dadka warehouse-da ka shaqeeya iyaga waxa muhiim u ah overtime-ka ay shaqeeyaan waxaan ogeyn dawladda federaalku lacaga fara badan ayaad marka saacado ka badan saacadihii lagugu talagalay oo 40 saacadood ama 80 saacadood hadba waxay noqoto toddobaadkii aad shaqeyso maalmaha dheeriga ama saacadaha dheeriga aad ku darto overtime ay dawladda federaalku lacaga fara badan ay ka qaadi jirto oo canshuura hadda kadib overtime-ka aad shaqeyso dawladda federaalku wax canshuura kama jari doonto waxa canshuur ka jaraya state-ka oo kaliya state-da qaarna ilaa iyo 7 ilaa iyo 9 iyaguna canshuur ma jiraan Texas iyo Florida iyo Tennessee iyo ay ku jiraan iyo Alaska iyo marka labadaasi arrin waa laba muhiim ah tibka wax canshuura dawladda federaalku kama qaadi doonto overtime-ka lacagaha aad shaqeysana wax canshuura laga ma qaadi doono dadka waaweyn ee social security-ka qaatana iyagana sidoo kale wax canshuura laga ma qaadi doono ama midda howlgabka ha ahaato ama midda kale ee disability-ga dadka baahiyaha gaarka qaba ahaadaan iyagana wax canshuura laga ma qaadi doono marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira sharcigan madaxweynuhu maanta saxiixay waxyaabahaasi ayaa kamid ah
in tibka iyo overtime-ka lacag saacadaha dheeriga uu qof ka shaqeeyo inaan wax canshuura dowladda federaalku aysan ka qaadi doonin iyo sidoo kalena in canshuur dhaaf loo samayn doono walow inta badan Trump canshuur dhaafka dadka maalqabeennada ah uu u samaynayo la leeyahay dadka dabaqada dhexe iyaga wax weyn kama soo gaarayaan laakiin marka tax return-kaada xareyso sanadku dhamaado waxa laga yaabaa lacagihii kuu soo laaban jiray lacaga ka badan inay kuu soo laabtaan marka waxyaabahaasi ayaa sharciga ugu muhiimsan waa 900 oo page lagama wada gaaro laakiin waxyaabaha muhiimka haddii waxyaabo kale ay soo baxaanna waan idila soo socodsiin doonaa laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee sharcigan the big beautiful bill oo madaxweyne Trump galabta qalinka uu ku duugay oo sharci noqonayo waxyaabahaas ayaa ku jira lacagihii kale ee masaafurinta iyo goobaha dadka la soo qabto sharci darrada lagu xirayo la ballaarinayo sida xarada hadda alligator Alcatraz oo Florida laga furo kale waxyaabahaasna waa ay ku jiraan ammaanka xuduudda sugitaankooda waxyaabo fara badan ku jira waxa laga yaabaa xitaa hadda inuu Trump dardar geliyo masaafurinta maadaama sida muuqata hadda lacagtaasi loo ansixiyay oo hadda qalinka uu ku duugay wixii hadda ka dambeeyana lacagahaasi uu heli doono waxyaabaha kale ee soo kordha waa idila soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta nabadgelyo